waxaa jirta xigmad oranaysa akhriyaha maanta waa hogaamiyaha bari. waxaa lagu tiriyaa inay tahay hab kamid ah hababka ugu fiican ee insaanku ku kasbado wax badan oo kamid ah aqoonta, culumta iyo fikradaha. waxayna gaarsiisaa in insaanku noqdo mid horumarsan dhan walba oo noloshiisa kamid ah, cilmi ahaan, caafimaad ahaan, dhaqaale ahaan, bulsho ahaan, siyaasad ahaan. dhaqan ahaan waxa ayna u furtaa dariiq iyo maskax ballaaran oo ay adkeed gaarideeda. wax akhrinta waxay leedahay ahmiyad aad u ballaaran oo aan inta lagu soo koobi karin. bilowgii u soo ifbixi dunida nuurka islaam iyo kalimadii ugu horeysay waxay ahayd iqra, akhri. waxa aadna ka dhuuxi kartaa halkan ahmiyadda ay u leedahay culumta iyo aqoonta wax akhrinta, halka sidoo kale lagu tiriyo wax akhrinta ilaha ugu badan ay ka soo burqadaan cilmiga iyo aqoonta ugu ballaaran, iyada oo ay ku dadaaleen ummadaha baraarugsan faafinta cilmiga iyo sahlidda hababka lagu helo. waxa ayna furaha koobaad ka dhigteen ku dhiirigelinta dadkooda wax akhriska iyo inay ka shaqeeyaan ku dhex faafinta bulshada qeybaheeda kala duwan. akhrinta waxa ay ahayd welina tahay hababka ugu muhiimsan ee soo minguurinta miraha aqliga basharkii hore. waxyaabihii ay hindiseen dhaqankiisii, fanka iyo suugaantiisii iyo waxqabadkiisii. wax akhrintana waa sifo u gooni ah shucuubta horumartay, kuwaasoo mar walba ku dadaala maskax weyn oo xigto horumar ballaaran. waxaa la sheegaa maktabadii ugu horeysay ee faraacinadii hore inay albaabkeeda hore ay ku qoreen halkan waa quudka nafta iyo daawada caqliyadda. casrigan aynu nool nahay wax akhrinta waxa ay ka mid noqotay nolol maalmeedka muwaadin kasta. wax akhrintana waa wadada kaliya ee wax alifidda iyo soo saaridda mu'alifiin, hindisayaal, mukafiriin iyo dad fikir fog leh. ummadaha wax akhriya waa ummadaha sutiga u haya caalamka. ummadaha wax akhriya waa ummadaha xuruubay, maxaa yeelay wax akhrinta waxa ay ka fogeynaysaa jahliga, khuraafaadka iyo dib u dhaca. waxay ka qortay hay-adda Scott Forsman wax akhrinta oraah aad u qurux badneed. barnaamijka bandhigga akhriska buugaagta caalamiga ah ee lagu qabtay San Diego sanadkii 1997 ciwaankeeduna uu ahaa waxaa bedeli doona caalamka oraahda oo ahayd maalin maalmaha ka mid ah waxaa caalamka bedeli doona canug yar, waxaana siin doona canugaas yar hadiyad dhadhankeeda ka go'in weligeed. hadiyad caalamka hortiisa keenaysa kana dhigaysa dadka dunida ugu hodansan uguna qanisan. hadiyadaasna waa wax akhrinta, taas oo u furi doonta labada indhood. dareenkana waxaa kiciya sheekooyinka, taas oo ka dhigaysa caruurta inay dareemaan, kobcaan, fakeraan. ma jiro wax joojin kara maxaa yeelay qalbigaygu waxa uu garanayaa macnaha wax akhriska iyo awoodda ay leedahay. waxa uu yiri Abbas al-Aqadi wax akhrinta waxa ay da'da insaanka ugu dartaa da' kale, waana da'da qorayaasha, mukafiriinta, aqoon-yahanada,
علومada falsafada iyo wixii lamid ah ma jirin caalim weyn ama mu'allif weyn hadduu jirana waxa uu aad ugu firfircoonaa wax akhrinta waxa ayna u ahayd wadada uu u maro cilmiga iyo wax curinta tusaale ahaan aan usoo qaadano Philo Francis Worth mu'allifkii telefishinka wuxuu ahaa Philo arday aad u dadaal badan aad iyo aadna u jecel uguna wanaagsan wax akhriska waxaa la sheegaa inuu akhriyay dhammaan wixii maktabada iskoolka yaalay ee ka hadlaya codka iyo ilayska iyo waxa loo yaqaano silent mode ama filmaanta aan codka lahayn hamigiisu wuxuu ahaa inuu kulmiyo codka iyo muuqaalka filimka muddo Philo markii uu akhriyay daraaseeyay waxa ayna dhahan waxa uu akhriyay akhriskii aadka ugu badnaa ilaa uu ka gaaray waxa uu ku haminayay waxaana loogu wanqalay alifida telefishinka magaciisa dadka wax curiya dadka wax alifa mukafiriinta iyo aqoonyahan kasta cilmigu doona ha ku xeeleeraadee waa dad annaga naga mid ah laakiin cilmiga waxa ay ka dhigteen wadan ay degaan wax akhriskana wado ay u sii maraan dhab ahaantii waxa aynu u wada baahannahay the reading clinic isbitaalka wax akhriska muhiimadiisuna tahay baraarujinta dadka ahamiyadda wax akhrinta halkan waa xarunta Efiye waa madal qurxoon waa baraarujiye umadeed waa fursad hayis u baahan waa himilo mudan in lagu xamdiyo laguna bogaadiyo garashada dadkii hirgeliyay waxaa lagu qabtaa bandhigyo dhaqan hiddo iyo suugaaneed dood cilmiyeed dheelitiran oo lagu maamuuso dadka aragtiyaha dheer iyo waajooga Soomaaliyeed oo bulshadu marin hagineed u noqda maxamed ibad oo kamid ah haldoorka xaruntan Efiye ayaan kula kulmay halkan waxaana si kooban u weydiiyay dhowr su'aalood oo ku qabtay Efiye iyo ujeedooyinka ka dambeeya dhismaheeda tahay runtii xarunta Efiye oo ah akhriska qoraalka hidaha iyo dhaqanka waa madal aan ku fakaraynay in badan inaanu sameeyno kuna soo taamaynay fikirka ka dambeeya ama aragtida ka dambaysa xarunta Efiye waxay tahay inaanu dhiirigelino akhriska qoraalka hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed sidoo kalena aanu ku kabno ama aanu ku labno maxay ahayd tooyo dooda cilmiyeysan oo ka turjumaya maxay ahayd tooyo aragtida xorta ah wax isweydaarsiga iyo isku sheeg haboon oo iyadan cidna maartay loo daba fadhin maxay ahayd Soomaaliya sidii u burburtay 25 sano ka hor waxaan ogsoonahay inay meel walba burburtay wadooyinka ay burbureen xarumaha caafimaad iyo xarumo waxbarasho iyo xarun akhris iyo maktabadihi iyo meel walba dalka ahmiyad gaar u lahayd inay burburtay arrimahaas oo dhan markay dhaceen waxa sidoo kale arintaas wax ka sii muhiimsan oo ayaduna dhacday inay dadkii maxay ahayd maskaxdooda si lamida intaas burburtay oo burburtay si arrimahaas oo kale aan u soo koobno aan qayb uga qaadano maxay ahayd dib u dhiska dalkan ee maskaxeed waxaanu markii ugu horeysay ku guuleysanay sanadkan inaanu aasaasno maktabadii dadweyne oo free ah oo bilaash ah oo cidna lacag laga qaadayn inaanu ka hirgelino magaalada Muqdisho afkaarteeda ama ahamiyadeeda ugu weyn ee xabaarsan tahay waxay tahay in la helo ummad wax qorta wax aqrisa adduunyadana wax u gudbiso waxa jirta oraah caan oo Soomaalida u gashay diiwaanka oo tiraahdo Soomaalidu waa ummad afka wax ka sheegtay aan wax qorin marka si aan aragtidaas u bedelno iyo oraahdaas caan ka baxday waxaan rabnaa inaanu Soomaalida ka dhigno ummad wax qorta adduunyada wax la wadaagta buugaagteeda iyo gabayadeeda iyo hal abuurkeeda iyo taariikhdeeda iyo sooyaalkeedaba baraha bulshada iyo library-yada iyo maxay ahayd adduunyada dhan meel walba laga shaaciyo waayahay dabcan waa ka hadashay ahmiyadda iyo ujeedada qoraalka aragti waxaad higsanaysaan oo aad ka damacsantiin Efiye ma jirtaa aad iyo aad waxaan aragti lahayn runtii meelba ma gaaraan aragtida Efiye ee ugu ballaaran ama ugu weyn ama aan ku hamirina waxay tahay inaanu helno arday Soomaaliyeed dhalinyaro Soomaaliyeed dad Soomaaliyeed oo aan ciil u qabin meel ay wax ku akhriyaan meel ay wax ku soo bandhigaan meel ay aragtidooda iyo fikirkooda iyo doodahooda iyo bandhigga buugaagtooda iyo arrimahooda cilmiyeysan ay wax kula wadaagaan ujeedada ugu weyn aan ka leenahay waxay tahay in aanu hirgelino nidaam la iskaga daysan karo oo akhris iyo qoraal tusaale maanta markii magaalada Muqdisho aan isbuuci la soo dhaafo kale waxaanu qabanay madal aan u qabanay dhalinyarada hal abuurka oo isku jira wiilal iyo gabdho wiilashaas iyo gabdhahaas yar ee hal abuurka leh markay hibadooda soo bandhigaan waxa jira in badan oo ay ku duugan tahay intaas in ka badanba laakiin aan haysan meel ay ku soo bandhigaan maanta hadraawi iyo maxay ahayd tooy maqaawiirtii maxay ahayd tooy gabayada iyo suugaanta Soomaaliyeed waxaad moodaa inuu gobolkoodii sii dhacayo ummad bedesha taariikh laga reebo hal abuur leh isku wada deysata qoraalka iyo akhriskuna meel sare uu ka gaaro waxa rabnaa 18 gobol ee Soomaaliya
degmo iyo tuulo iyo meel walba in maxay ahayd ay wada noqoto wada maktabad meel wax laga akhriyo mustaqbalka dhowna waxaan rajaynaynaa inaanu furno maktabad online ah oo Soomaalida dibadda iyo gudaha dalka joogtaba ay meel walba wax ka akhrisan karaan waay dhawaan muqdisho waxaa ka furmaya sanadkii labaad bandhiga carwada buugaagta runtii magaalooyin fara badan oo dalka hadda waa lagu qabtay Garowe waa kamid ah Hargeysa lagu qabtay dabcan ifyeen runtii sanadkii hore meesha jir hadda jirtaa kaalmo ka qaadan kartaa iyadoo nooca kaalmo ay ka qaadan kartaa bandhigadaas oo kale ifye runtii inay bandhigyadan ama carwooyinka horta runtii waa wax qabadnu aad u wanaagsan bahda waxaan ku wada jirnaa dadka hal abuurka iyo akhriska iyo buugaagta aadka u dhiirigelinayo ifye way soo dhaweynaysaa way dhiirigelinaysaa way bogaadinaysaa way mahad celinaysaa ummadda Soomaaliyeed arintaas isku xilqaamayso inay dad Soomaali iyo Soomaaliba aan ahayn laakiin wax Soomaalida quseeyo si uun ula xiriir inay soo bandhigaan waa fikir aan soo dhaweerino ifii waxay uga qayb qaadanaysaa inay buugaagtaas meesha yaallo inteeda ugu badan hadii Ilaahay idmo ama gobolada maanta hadda caasimadda kale in maxay ahayd ay tagaan bandhigyadaas buugaagtaas ay ka qayb qaataan wixii Soomaali anfacayo oo buugaagtaas saameyn u lahayn in inta soo qaadnaan maktabada keenno qofkii maanta u fiirsada xaaladda ummadeen oo aan oran karno waa bulsho dhan walba ka burburtay dhaqaale ahaan caafimaad ahaan siyaasad ahaan amni ahaan ijtimaaci ahaan deegaan ahaan waxbarasho ahaan moraal ahaan akhlaaq ahaan kuna habsada gaajo colaado jahli abaaro burbur iyo barakac meel u fiican aysan jirin dhan walba oo aad ka eeg haddase waxaad moodaa in bulshadeenu iminka ku baraarugtay ahmiyadda ay leedahay akhrinta warsame maxamed cumar shiile oo ah qoraa iyo dhaqan dhowr Soomaali ayaan isna kula kulmay isagoo ku jira maktabada xarunta ifye waxaana weydiiyay bal inuu iiga warramo bulshadeenu inay tahay bulsho ku baraarugsan qiimaha akhriska ifye waxa weeye xarun aan isleeyahay thaqaafada akhriska iyo qoraalka bulshada Soomaaliyeed oo la is oran karo way ku hooseysaa waa halka isleeyahay waxbay bedeli doontaa qoraalka iyo akhriskana sare kor bay u qaadi doontaa waa sheegtay dabcan kaalinta ay runtii bulshadu xaggeeda uga jirto dabcan dhowr sano ka hor saan ma ahayn magaalada fikirkan dhalinyarada ka soo maaxanayo kaalin in la eg buu ka qaadanaya dhalinyarada runtii hankoodu inay buugaag qoraan oo taariikh ay ka tagaan oraah Ingiriisi dhahda the more you know the more you read the more you know markastoo akhrisid waxbaad ogaataa ogaalkaas keenay wax la qoro markii adoon wax ogeyn wax ma qori karaysid maanta warsamo hadii la weydiiyo sida qof loo wareystaa laga yaabo in wax badan ka tago laakiin Caydaruus hadii la weydiiyo ogaalkiisa iyo waxbarashadiisu ka bartay inta warsamo ka sheegi kara in ka badan uu ka sheegi karaya qofku markuu doonayo inuu wax qoro marka hore inuu buug akhriyo wax ogaado ogaalkiisa soo bato ba keeni karayso inuu asna wax qoro si dadku ogaadaan waa soo balkan taal maxaa adigu isdhihi kartaa dadka Soomaalida si gaar ah u jecel yihiin sooyaalka Soomaalida kale uu muuqda taariikhda Soomaaliga maxaa isleedahay Soomaalidu taariikhda aad bay u jecel yihiin inay qof la garanayo soo ay dhaxdo taariikh kale magac kale inay taariikhdiisa akhriyaan fanka iyo suugaanta malawaalka iyo jacaylka aad bay u jecel yihiin riwaayadaha Soomaalidu waxa la oran karayaa suugaantu kale aad bay u xiiseeyaan taariikhdana aad bay u akhriyaan waayahan dambana waxaad moodaa in aad u soo badanayaan buugaagta laga qoro dhiirigelinta iyo hanka dadka iyo aragtiyaha buugtaan waxaad moodaa in dadku dhalinyarta aad u xiiseeyaan aad u jecel yihiin dadka wax badbaadiya marka ay marayaan marxaladan oo kale ee qurusta joogta intooda wax akhriska ay ku jirto damiir wadaninimo iyo mid diinid ayay bilaabaan dhabo horumarineed oo dhaxalreeb ah aqoonyahankeena imise buug ayuu akhriyaa bishii imise ayuu ku booriyaa dadka wax akhriska iyo wax qorida aniga iyo adigase imise ayaan akhrinaa bishii imise ayaan bulshadeena ku boorinaa wax akhriska iyo wax qorida imise qof ayaan si barnaa sida wax loo qoro iyo sida wax loo akhriyo
abubakar cabdulaahi ducaysane waa qoraa da-yar waxa uu hage tusaalaysan u noqonayaa dadka asaagiisa ee maanta jooga. waxa uu qoray in ka badan 9 buug oo ka hadlaya marxaladda aynu maanta joogno. isagoo ka yimid magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal ayaan kula kulmay bandhigga caalamiga ee buugaagta oo sanadkiisii labaad lagu qabtay magaalada Muqdisho ee xarunta dalka. abubakar waxa uu nasiib u yeeshay in sanadkiisii labaad uu madaljoog ka noqdo madashan ay mashxaradu ka muuqato. waxaan joogaa dhismaha weyn ee Hotel City Balance oo maanta si rasmi ah uga daahfurmay sanadkii labaad bandhigga buugaagta oo sidaan oo kale sanadkii hore lagu qabtay. waxaa ka soo qayb galay runtii qorayaal aad u fara badan, dadweyne kala duwan ayaa yimid. runtii sanadkan kii hore waa ay ka duuneed. waxaan halkan ila joogaa abubakar cabdulaahi ducaysane oo kamid ah qorayaashii sanadkii hore ka qayb galay, sanadkaana ka qayb galay. waxa uu ka yimid magaalada Boorame ku soo dhawo markii hore TV-ga Jubbaland. Idris Maxamuud Iimaan oo mahadsan tahay. Jubbaland TV waa ku dhawaah. waayahay sanadkan maxaad uga qayb qaadanaysaa bandhigan? sanadkan waxa uga qayb qaadanayaa 2 buug oo kala yiraahdo caqli curin iyo murtiye maskax. waayahay bal midka koobaad bal haddaa si kooban dadku ula wadaagto muxuu ka hadlayaa, nuxurkiisa muxuu yahay? buugan caqli iyo curin wuxuu ka hadlayaa waa buug oo murti ka buuxdo. wuxuu ka hadlayaa murtooyin ka mid yihiin laba waa la ilaaliyaa haweenkii hantida, laba kama dhergaan, dumarka xaraka kama dhergaan, ragna xoolo kama dhergaan, 3 baa xilka ka qaado, xaasidnimo, xurmo la'aan, xatooyo. buug oo ka hadlayo murti fara badan weeye. waayahay inaad qorto oo runtii juhdigaas inta laga ageliso abubakar oo maxaa kugu kalafay? aniyo waxa la yiraahdaa rag waa raggii hore hadalna waa intay yiraahdeen. anoo ku duula taas waxaan isku dayay inaan murti cusub aan ku soo kordhiyo murtideennii hore ee Soomaaliga ahaa. waayahay bal ma jirtaa dad kugu caawiyo garab runtii kugu siiday? waa shaqo adag marka si loo eego. haa qorayaal fara badan oo waaweyn iyo dhalinyaro ah ayaa iga caawisay sixidda buugga iyo habeentiisaba. waayahay runtii waa buuggii 6aad mise 7aad aan qadneen dhowr buug baa qortay. buugaaga qor ilaa iyo sanadkan waxaan kaga qayb galay 6 buug. sanadkan waxaa soo baxay 3 buug, 2 buug bandhigeen, buug kale oo daabacad ku dahay. buugga daabacad ku dahay waxa la yiraahdaa ciidamin caruurta. waayahay hankaagu muxuu yahay runtii adoo da-yar oo intaasoo dhowr buug baa wataa sanadka kale xiga hankaagu muxuu yahay? insha Allah intaan noolahay cimrigeyga iyo caqligeyga iyo caafimaadkeyga waxaan ugu faa'iideyn doonaa mujtamacayga inaan wax badan sii qoro, inaan dadkayga dhiirigeliyo, inaan bulshadayda mar walba ku dhex jiro wanaagood ka shaqeeyo. dabcan magaalada kama imaan Boorama ka timid oo xagga ay Awdal ah runtii inaad safar halkan u timaado Muqdisho oo runtii kaga qayb gasho adigu farxad ama dareen nuucay ku siinaysaa? dareen weyn ay xambaaraysaa. runtii dadkii iga caawiyay inaan halkan imaado iyaguna u mahad celinayaa oo carwada bandhigga buugaagta ugu horeeyay Maxamed Diini. runtii inta ay imaadeen Muqdisho hal sana ka maqnaa. Muqdisho xudunteeda ku aasan marti kama ihi. waa farxad weyn ay tahay inaan Muqdisho imaado mar kale hal sanad kadib. aad u mahadsantahay. sidoo kale maxamed Sacuudi Daahir oo ah qoraa waxa ay qortay buugaagta kala ah waad guuleysan kartaa iyo sidoo kale maqaawiirtii murtida. mar aan kula kulmay qaybta buugaagta lagu iibiyay ee bandhigga carwada ayaan wax ka weydiiyay ahmiyadeeda wax akhriska iyo qoraalka. waa hagaag daawadayaal iminkan waxay la joogtaa Sacuudi Daahir ku soo dhawow TV-ga Jubbaland. labada buug adaa qor dabcan bal si kooban aad baa u mahadsantihiin TV-ga Jubbaland. aad u mahad celinayaa. waxaan ka soo qayb galay carwada buugaagta sanadkii labaad. sanadkii koowaad buugaan aan soo bandhigay waad guuleysan kartaa. sanadkii labaadna maqaawiirtii murtida buug af Soomaali iyo Suugaan aan soo bandhigay. waa buug labadaba af Soomaali ku qoran. midna buug dhiirigelin iyo sida loo guuleysan karay iyo waxyaabahaas ku saabsan. midna waxa uu ka hadlayaa 12kaas nin Soomaaliyeed ee maqaawiirtii murtida aan ugu magac daray ee dhammaantood dhintay inaan taariikhdooda urubiyo. gabayadooda iyo maasooyinkooda heestii ay sameeyeen dhammaan iyagana aan xus uga dhigno kuna xusuusano wixii ay qoreen oo ka reebno ninkooda. horta alxamdulillah sanadka hore kana uga soo qayb galay dhiirigelintii sanadka hore aan helay. buugaan habeenkii carwada xirmaysa sanadkii hore ee 28 Agoost ayaan bilaabay. isla sanadkii labaad Agoost ayuuna ii soo dhamaaday. taasna waxay ku cadeynaysaa inaan carwada dhiirigelin helay. dabcan
horta aniga af Soomaaligan xoog u jeclahay alxamdulillah hooyo iyo aabbo af Soomaaliga aad u isticmaalo iyo saaxiibo af Soomaaliga aad u isticmaalo waa ku dhigtay waxyaabaha igu dhaliyo waxay tahay horta inaan af hooyo kor u qaadno hadaan nahay dhalinyarada Soomaaliya xornimada dhalinyara u keentay haddana af Soomaaligii inaan kor u qaadno dhalinyarada ay tahay inay door fiican ka ciyaaraan sababahaas ay u xambaareen aniga xamaraan ku dhashay xamaraan ku barbaaray xamaraan ku bartay alxamdulillah walina xamaraan jawaasiina joogto carwada lagu qabto magaalada Muqdisho in alaale intii Soomaaliya hool ka qabato waa meesha kaliya ee la is oran karo isbedel ay sameysay oo ah sanadkii hore dad badan ayaa joogay qaybgalayaal ahay maanta waa qorayaal waxay heleen marka dhiirigelin inay wax qori karaan inay ogaan karaan bal waxay qoraan meel lagu soo bandhigi karo inay jirto oo soo bandhigaan waxooda laga faa'iideysan karo dhiirigelin ay u noqoto marka isbedel fiican ay imaaday sanadkii fariinta ugu dambaysan gudbinaya waxay tahay hadda carwadan joognaa bugaaga lagu soo bandhigay qorayaal ay joogaan in dadka qorayaasha ah la dhiirigeliyo buugtooda la iibsado ayagana dadka wax akhriyo dadka kalena inay wax badan akhriyaan si sanadka dambe u noqdaan qorayaasha barto jihaynta iyo hagidda ummadeed waa kaalin ay u bannaan tahay dadka dadnimadooda iyo damiirkooduba uu sarreeyo carwada buugaagta ee Muqdisho waxay dabooshay baahi aan badnayn bulshadaana waxay ku baraarujisay faa'iidada akhrisku leeyahay dhalinyaro badanna waxay ku dhiratay inay tuujiyaan maskaxdooda oo ay soo bandhigaan hibadooda qoraal inkastoo aan jirin cid taageertay cid ku dhiirigelisa toona haddana waxaa la oran karaa waxaa muuqda shumac iftiin badan oo hilkiisu yahay horumarka akhriska iyo qoraalka haddii la sii wado lana joogteeyo barnaamijka bandhiga buugaagta ee Muqdisho iyo maktabadda wareegta oo soo martay guud ahaan gobolada dalka waxaa haga muwaadiniin iskood isu xilqaamay waxaa dhammaanteen ina saaran mas-uuliyad ah inaynu bulshada ku dhiirigelino wax akhriska oo aynu ka dhigano dhaqan inaynu wax aqrino goobaha wax lagu akhriyana aynu badino asaasaha carwada caalamiga ah ee buugaagta ee Muqdisho isaga oo sanadkii labaad qabtay bandhigan suurageliyay in dad intaan la eg ay isu yimaadaan bandhigan ayaa ka hadlaya ahdaafta iyo ujeedooyinka fog ee laga leeyahay isu imaatanka bulshada in badan oo ay halkan fadhiyeen waxaan u fadhinay inaan kor u qaadno kobcino aqoon iyo cilmi iyo waxbarasho iyo wanaag waxaan halkan isugu nimid in aan jiilal naga dambeeya wax u hambayno waxaa yimid dad dacalladii daafaha adduunka ka kala yimid qoraa Soomaaliyeed iyo aqoon Soomaaliyeed iyo gabdhaha Soomaaliyeed mid da'yar iyo mid dhexe iyo mid kalaba waxaa yimid qoraa Soomaaliya wax ku qoray mid af Ingiriis wax ku qoray mid af Carabi wax ku qoray mid af Booran wax ku qoray iyo af kalaba intaasoo idil waxaa loo sameeyay ummadi haddii aysan iyada waxa ay jeceshahay iyo waxa ay rabto iyo hamigeedu wuxuu yahay iyo taariikhdeeda iyo nolosheeda aysan qoran cid kale inay u qortaa waa habeenka xalay tegay carwada buugaagta ee Muqdisho mabaadi'da aasaasiga u ahna waxaa kow ka ah in la ilaaliyo dadnimada qowmiyadda Soomaaliyeed Soomaali dad walba ku abtirsata adduunka meesha rabta wax ka timaada inay istaqaano dadka kale iska taqaano calaamad iyo sumadoodii ugu taalo anigu markaan qofka Soomaaliga isirkiisu Soomaali yahay adduunka qalbkiisa kala ku arko rixin gooniya iyo calaamad gooniya iyo xiriir gooniya ay ka baxayaan taasina waxay ku imaan inaan ilaashano wax walba oo muqaddas noo ah
diinta muqadas nooc alla ka cabsiga iyo xishoodka muqadas nooc waxbarashada iyo aqoontiga caqliga wanaagsan iyo afkaarta saliimka muqadas nooc adduunka inaan ku ilaashano dadnimadeena iyo qowmiyadda soomaaliyeed wanaageeda iyo taariikhdeedana in wax la qoro ayaa muqadas u ah waxaan mar labaad sanadkii labaad alxamdulilah ilaaha mahadle kulligiin gabdho iyo wiilalba aan idinku soo dhaweyn sanadkii labaad iyo carwadii bugaagta ee muqdisho intii adduunka nooga timid jazaakum allahu khayran intii gobolada kale nooga timid jazaakum allahu khayran inta dhulalka soomaalidu degta nooga timid jazaakum allahu khayran inta kaloo meelo kale loogu yimaado soomaali ahayn iyaguna waa bani aadam oo ixtiraam iyo xushmad bay mudan yihiin waan soo dhaweynaynaa barwaaqo iyo baraar iyo bashbash inay noogu dhamaataan jeclaha insha allah waxaa la isugu yimid waa aqoon waa wax kala kororsi adduunka qof wax walba yaqaan lawaa qof wax walba haystana lawaa qof wax walba samayn karana lawaa qofka kugu xigoo midigta kaa jira waxaadan aqoon yaqaan oo waxaadan haysan haysto oo waxaadan samayn kara sameeya kan bidixna waa sidaa oo kale inaan wada wadaagno wanaag iyo soomaalinimo iyo cilmi iyo aqoon soomaaliyada cusub iyo soomaalida cusub mustaqbal qurux badan inuu u dhashaa gacmaheenay maanta ku jirta allah nala garab galo soo dhawaada haddii aynaan wax aqrin waxna qorin ma gaari doono wax horumar ah gaar ahaan casrigan aynu nool nahay oo lagu tiriyo casrigii cilmiga